waa dhacdo quusa warning speedka wadankan dhibaato badan ayuu ku hayaa qof walba ayaa og oo dhalinyaro in cuuryaamiyey dadkii isqabay iyo dadkii maaragtay caadiga ahaa in warning speed dhibaato u geys dhacdo ka dhacda Muqdisho wiliba degmada Shangaani nin degan ayaa xaaskiisii ka xaday dahab iyo telefoon kadib markuu saartay warning speedka way ka cuntay mar kale ayuu dib ugu salaabtay in raashinka carruurtiisa cun lahayd inuu dib u kato bal dhibaatada heerkaas la gaarsiinaysa hooyadii ayaa cabanaysa raashinkii guri ka maqan dahabkii telefoonkii ayadoo misna shaqeey jirtay ilmaha u shaqeey jirtay dowladda way iska endertay in warning speedka dalkan ay habeera gabi aan ay ka tirtirto oo cuuriyaamay dhalinyaradii ilmo badan ayaa gaajooday oo wixii la sii lahaa la saartay asaga dad badan ayaa wuxuu ku waayay oo hantidooda baaba'day dad badan ayaa ku waashay oo warning speedka waa cuuriyaaminta wiliba dalka Soomaaliya aad buu u cuuriyaamiyay carruur badan oo raashin qood loo gada jiray ayaa markaana ka go'day oo wixii ay loo gada lahaa warning speed ayaa lagu saartaa hadda bal fiir aabahan wuxuu sameeyay nin degan ayuu iska qabow ayuu Shangaan ayuu degan yahay hal mar ayuu hal habeen ayuu ismiyay xaaladii ugu darneed wuxuu gatay daabkii xaaskiisa lacag meel uu jito ilmaha oo raashin ugu daro marka ka cuntay misna wuxuu dib ugu soo laabtay sanduuqa raashinka inuu kiish bariisha iyo kiish bur qaato bal fiiri heerka oo marayo warning speedka adiga daawanaya waa ogtahay warning speedka inuu cuuriyaan yahay oo dhalinyaro badan gacmahooda farqo dhig dad badan isqabo marar ee madaxiisa u kala tageen isku fureen sababtoo xaalad duruufo aweed xoolihii la haysan la cunay warning speed lagu baabiyey carruurtii waxay cunay waayeen ayaa darteed la isku furay dowladda iyo maamulka gobolka Banaadir arrintaas laakiin waa ka in maaragtay dawladihii oo ma arkaan cadowga ugu daran warning speed Soomaaliya hadda dhibaato ugu daran haysata dhaqaale xumada shiidka dhibaatada dalka haysata dadka maaragtay busaarad xumada haysa iyo dadka isfuraya 24 saac isku furaya warning speed madaxiisa dadkii oo lacag qabatay waa warning speed ayaa dhibaataas keenaya dowladda arrintaana way ka in dawalan tahay oo waxa loo baahay dowladda inay arrinta u soo jeesto warning speed dunida ka baxso dalalka adduunka warning speed waa iska jareen way arkay in dhaqaalaha dalkooda hoos u wado annaga laakiin taas awood ma leeyin aad baa wax ma Soomaaliya gacan cadow ay gacanta ugu jirtaa warning speed ay koob ka tahay sheekadii ugu darneed waxay sii noqotay markii haaf bura qoray iyo haaf briisa ilmihiisa ay qoodanayeen oo horay u sii xaday subhanallah marka hore xaaska ayaa ilmaha u shaqeynaysa oo yiri isagiina waa ka sii xadaya qoyskiisa wuxuuna tari karaa bulshada waa tee dhacdo ugu daran ee aan maqashay hadda midan waa caadi dhacdadan waa dhacdo oo qof ku dhacda laakiin mid ka sii daran jirto dad booskoodii marar gatay dad baabuurtu gatay laba sano ka hor waxay ahayd Hargeysa ayaa nin isku dilay oo warning speed saartay hantidii gaari ayuu lahaa saartay boos ayuu saartay maqaad oo shidan ayuu saartay waxna ibrahim noqdeen nafta ayuu ka weysay dhibaatada ugu daran dalkeena soo gabi ahaan geeyga Soomaaliya waa warning speed cadowga ugu koowaad dhalinyaradii kunka aysan oo ka baabiyay dhalinyaradii xogaa lacag aysan cad oo ka baabiyeen ninkii maaragtay wax qaadan kara ninkii wax dhici kara maalin walba waxa maqlaa telefoon ayaa la dhacay askar ayaa wax dilaysa niman tuugada tooriga u faraan guriga loo dhacay dhibaatada waa balwadaasi iyo warning speed dowladana taas way iska intirtay waa dhacdadii ugu dareed oo quusa nala wadaag dhacdadii ugu xumeyd kugu dhacda ama qof ku dhacda hayso oo dhacdaan waa dhacdadii ugu daran in ilmihiisii raashinka u lahayn iibsado warning speed saarto subhanallah buuqaaq shirgareeya jimco wanaagsan salaamu calaykum raxmatullaahi wa barakaatuh